saaxiibadiisii hore waxay arkayeen isagoo sidii nin yar u ekaaday, waxayna ka baryayeen inuu u sheego sirta ka dambaysa dhaliilnimadiisa cusub. mid ka mid a asxaabtiisa oo dhowaan guursan rabo ayaa u ballan qaaday inuu siinayo tikid uu ku aado magaalada Hawaii haddii laakiin taa beddelkeeda uu u sheego sirta keenta inuu yaraado. wuxuu u sheegay wax walba oo ku saabsan Shingabi. wadahadalkooda waxaa maqlayay Minguul oo diyaarinayay inuu Shingabi ku beddesho lacag tiro badan. dhanka kale Mandiog wuxuu xirxirtay boorsadiisa isagoo isku diyaarinaya safar markii asxaabtiisa kale ay soo garaacayeen albaabkiisa. xilli dhammaan asxaabtiisa ay ogaadeen waxa ku saabsan Shingabi, Mandiog si farxad ay ku dheehan tahay ayuu u kaxeeyay asxaabtiisa dhanka garaajka, laakiin wuxuu la kulmay Shingabi oo maqan. kadibna waxaan aragnaa Minguul oo gaariga ku kaxaystay Shingabi una wata magaalada Seoul, halkaas oo uu qorsheeyey inuu kaga iibiyo Viagra. intuu wadada kusii jiray waxaa joojiyey booliiska xawaaraha gaarigiisa uu ku socday dartiis. nimankii booliiska ahaa ayay isgarteen oo waxay kasoo wada jeedeen hal tuulo. markay xoogaa wada hadlayeen waxay ka maqleen xagga dambe ee gaariga dhawaaq, kadibna waxay arkeen markii ay baareen Shingabi oo xirxiran. labadoodiba waxaa loo kaxeeyey stationka. booliiska ayaa ka furayay afkiisa sharootada Shingabi markay arkayeen ilkaba inuusan lahayn. isla waqtigaasba Mandiog ayaa yimid goobta xarunta stationka isagoo sheeganaya in Shingabi uu yahay wiilkiisa. habeenkaas Haiguul xaafadda marka loo noqday waxay u keentay Shingabi kabaaj uu cuno, laakiin ma awoodi karin ilkihii laga saaray awgood. Mandiog ayaa aad iyo aad uga walwalay arrintaas, xilli saaxiibadiisa ay u soo socdaan in la qaniino si ay dib ugu helaan dhaliilnimadoodii. Mandiog wuu fikiray oo wuxuu diyaariyey qorshe, wuxuuna ninkaa u keenay ilko been abuura. ugu dambayntiina wuxuu bilaabay ganacsi. asxaabtiisii ayaa ka naxay qaniinyadii ugu horeysay, balse aakhirkii way la qabsadeen. dabayaaqada maalinkan Namju ayaa lacagta ku shubtay sanduuq ammaan ah. maalintii xigtay qof kasta oo la qaniinay banaanka ayuu usoo orday isagoo faraxsan oo u dabaaldegaya dib u helka dhaliilnimadiisa. si kastaba ha noqotee layaab ayaa dhacay oo waxay ka war heleen familkii in sanduuqii oo dhan uu maran yahay. waxaana la ogaaday in Mandiog uu qaatay dhammaan qarashkii la aruurinayay uuna u safray magaalada Hawaii, halka dhanka kalena wararka ku saabsan Shingabi ay ku sii fidayeen tuulada oo dhan. waxaa sii badanayay dadka kusii qulqulayay guriga Junguul. ugu dambayntiina faa'iidadooda ayaa cirka isku shareertay iyadoo baabuurta xamuulka ay buuxsameen oo ay soo raacayeen dadka qaniya doonka ah. maalmo kooban kadib waxay u sameeyeen xayeysiimo, xitaa waxay u soo gadeen ilka gaara oo macmal ah uu ku cuno qudrada. maalin maalmaha ka mid ah Haiguul waxay Shingabi geysay dukaan timaha lagu jarto, halkaasoo lagu hagaajiyey Shingabi. hadda muuqaalkiisu waa la daawan kara oo wuxuu noqday wiil dhalinyaro ah oo qurxan. kadib markii laga jaray timaha, isaga iyo Haiguul waxay bilaabeen inay is-eegaan oo jacayl ayaa dhexdooda ka qarxay, iyadoo Haiguulna ay ka xun tahay waqtigan in qoyskeeda ay isaga u adeegsadaan lacag darteed. habeenada ka mid ah Haiguul ayaa maqashay walaalkeeda oo qof dalka kala hadlayay arrimo ku saabsan iibinta Shingabi. isla maalintii xigtayna waxay ula soo baxday baadiyaha. waxay ka codsatay inuu iskaga cararo goobta si uu u helo xornimo. si walba oo ay noqoto, Shingabi oo isaga xitaa bilaabay inuu ka helo inanta ayaa wax weyn u arag faa'iidada lagaga helo qaniinyada dadka uu u geysto. dhanka kale saaxiibka Mandiog aruuskiisa, asxaabtii joogtay oo hore loo qaniinay ayaa bilaabay inay dareemaan kuleel daran, iyagoo raashinka xitaa u cunayay sida dad aad u gaajeysan oo gaajo la ololaya. waxay sidoo kale u dhaqmayeen si aan caadi ahayn. isla waqtigaasba Minguul wuxuu dareemay in Shingabi uunan guriga joogin oo wuxuu u orday raadintiisa, xilli uu niyadda ku hayay diyaarinta iibintiisa oo qarash badan ku heli lahaa. xoogaa kadib markii banaanka uu wareegay wuxuu ka helay Shingabi halkii ay Haiguul uga tagtay. isla markiiba wuu soo waday oo bas ayuu soo saartay. markaa dib ugu noqon arooska, wadaadkii wuxuu ka codsaday caruuska inuu aroosada dhunkado, laakiin ninku wuxuu taa beddelkeeda qaniinyo ku talaalay xaaskiisa. waxaa soo baxday in qof walba uu qaniinay Shingabi uu isku bedeli doono zombi. qalalaasa ayaa ka dhashay arooskii maadaama martida ay noqonayeen zombi. xilliga ka dambeysana cudurkana si dhaqsa ayuu ugu faafayay busteejada baabuurta. dadku waxay bilaabeen midba kan ku xigaa inuu qaniino. waxyar kadibna wadooyinka tuulada ayaa buuxsamay, iyadoo juudaanleydu kala wareegeen ibni aadankii. mid juudaanleya ayaa garaashka ugu galay Haiguul, iyaduna waxay u carartay oo garab weydiisatay waalidkeed. isla markiiba nin booliisa ayaa shaashada ka soo muuqday si uu u joojiyo isku dhaca, balse taa beddelkeeda qaniinyo ayaa lagu qabtay. zombiyaankan ma ahan mid doonaya qudrad ee waa mid rabaa hilib. familku waxay ogaadeen xaaladda siday u jirto, waxayna iskugu soo aruureen aqalkooda si ay naftooda u badbaadiyaan. daaqadihii iyo albaabihiina way xireen, waxayna bilaabeen inay aqriyaan buug zombiyeska ka hadlayo oo uu haystay Minguul, iyagoo kala baxay qishka hub laga samaysanayo maacun oo laisku difaaci doono.
markaan dib ugu noqono busteejada baska, Minguul ayaa si uun uga badbaaday waxa dhacayay, wuxuuna dib ugu soo safrayaa guriga isagoo kasoo tegay Shingabi. intuu kusoo jiray wadada wuxuu arkay in dadkii tuulada badankooda ay isku bedeleen zombie. dhanka kale Juudaantiina waxaa u suura gashay inay soo jebiyaan guriga ay familka ku aruursanaayeen, iyagoo kala firdhiyey qoyskii xilli Namju ay ku sigatay inay qabtaan iyadoo ka walwalaysay qasnadii lacagta ku jirtay. isla markiiba oo ay familka isku qariyeen garaajka, Minguul ayaa la yimid qoryo dabkiciyaal ah oo uu ku tuurayay zombieska, laakiin ma ogeen arrinta ah inuu qarxinayo xarun shidaal ah. isla markiiba gaarigiisii ayaa olol ka kacay. tani waxay soo jiidatay dareenka zombieska, taasoo ka dhigaysa inay u jilicsanaadaan iftiinka. qoryo badan ayaa cirka ku qarxay, laakiin Juudaantu ayaa si xiise leh u daawanaya, iyagooba aad moodayso inay ku sarqaamayaan. intaa kadib Namju ayaa fool qabanaysa iyadoo bilaabaysa inay dhasho. Junguul iyo Minguulna ayaa soo xirtay dharkii Shingabi iyagoo iska dhigaya zombie xilli ay banaanka soo aadeen. waxaa u suurta gashay in gaariga ay galaan, laakiin furihii ayay gudaha guriga ay ku soo iloobeen. markuu daarmay nalkii gaariga waxaa soo wicday Juudaantii oo dhan oo uu ku hareereysmay gaarigii. labaduba cabsi ayay kula qaboobeen gaariga. dhanka kale badbaadadooda dartood Hayguul ayaa u soo baxday banaanka iyadoo xiran dharka coosgurayaasha. si walbay ahaataba wax yar kadib waa laga xoog batay. markay dili rabeenna Shingabi ayaa u yimid si uu u badbaadiyo. intay ku jireen foodadaas, hal zombie ayaa dhaqaajiyey fiilooyinka qaar, taasoo keentay in calaamadaha korontadu ay iftiimaan. zombieski waxay aadeen xaggii iftiinka. Shingabi iyo Hayguulna sidaas ayay ku badbaadeen. isagoo ka faa'iidaysanaya fursadaas, Minguul ayaa ka soo baxay gaariga si uu furaha ugu doonto guriga, laakiin intuusan gaarin ayaa si lama filaana leyrkii u damay, iyadoo zombieskiina ay xaggiisa u soo leexdeen. waqtigaas waxaa la maqlayay codka dhallaanka ay dhashay Namju oo yeeraya. Minguul wuxuu la dagaalayaa Juudaanta isagoo aan ka taxadarin naftiisa si uu u soo helo furaha gaariga. Namju iyo sabigeedana qaybta gadaale ee gaariga ayay ku jiraan, xilli Hayguul iyo Shingabina ay ka difaacayaan zombieska in xaggooda ay u soo jabsadaan. Minguul ugu dambeyntii furihii ayuu soo helay. daaqada ayuu uga soo tuuray Hayguul oo familkii sidaasi ay uga baxsadeen goobta. Shingabi iyo zombieski ayaa isku haray. ugu dambeyntii Shingabi ayaa shiday dab, kaasoo sababay qarax xulciyay booyada shidaalka. maalintii xigtay Junguul ayaa soo toosay isagoo isku bedelay zombie, taasoo la yaab ku noqotay qof walba. gaariga ayay ku xireen wayna ka degeen dhammaantood. xilli ay ka arrinsanayeen tallaabadooda xigta ayaa waxaa soo gaaray shanqarta qof ku soo socda oo ka imaanaysay xagga buundada. nin faraxsan ayaa ka yimid safarkiisii Hawaii, taasoo aan ka warhayn waxa ka dhacay tuuladiisa. waxay ku wareereen sababta uu sida qof walba hore oo kale uu isaguna iskugu bedeli waayay zombie. dabadeed raadiyoga gaariga ka daarnaa ayaa looga dhawaaqay in waddanka Kuuriya oo dhan uu cudurka ku faafay. wariyaasha ayaa waxa ay ku andacoonayeen in dadka qaar ay iska difaaceen fayraska, sidoo kalena ay daawo u yihiinba in zombiesku ay dib ugu noqdaan bini'aadamkii ahaayeen. marka Minguul maqlay arrinkan kadib wuxuu qorsheynayaa inuu maandiyoog saameyntiisa ku bilaabo ganacsi kale. 6 bilood ayaa gudubtay hadda. cudurka zombiana wuxuu ku faafay dhammaan dalka Kuuriya, laakiin familka ayaa ku jira xilligoodii ugu wacnaa ebit. maandiyoog ayaa goosanaya qof walba si uu dib ugu soo celiyo qof caadi ah. xitaa Shingabi ayaa qof caadi ah kusoo noqday. sababtan darteeda filimka ayaa ku dhammaanaya leen dheer oo ay ku jiraan zombieska kuwaasoo doonaya inay bogsadaan. haddii aad ka hesha like saar, asxaabtaada share ku dheh. wabillahi tawfiiq.